waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay in aan xilkayga u guto si daacad ah oo danta dalka iyo dad iyo diintu ay ku jirto dhowrana dastuurka iyo shuruucda kale ee dalka u tahay munaasabad lagu dhaarinayay madaxweyne ku-xigeenka ahna si hayaha xilka madaxtinimada ee maamulka Khaatumo Cabdalle Maxamuud Haybe iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka ee ku-meel gaarka ee maamulka Khaatumo ayaa waxay ka dhacday magaalada Buuhoodle. munaasabadan lagu dhaarinayay madaxda ku-meel gaarka ee maamulka Khaatumo ayaa waxa ka soo qayb galay odayaasha dhaqanka, culimada diin iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ururada haweenka. dhanka kale waxa asaguna munaasabada ka hadlay gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Buuhoodle ee maamulka Khaatumo oo hambalyeeyay madaxweynaha loo dhaariyay xilka madaxtinimada iyo waliba sidoo kale mas'uuliyiinta maanta lagu dhaariyay munaasabada berigii dhaweytay ee ay ugu habsadeen abaartii riiqda dheeray yaa waxa loo bixiyay idabir dadkii waxa loo bixiyay idabir oo dadka xoolaha ka dhamaadeen idabir baa loo bixiyay markii dambe la yiri idabir baa markii hore loo bixiyay qof walba wuxuu yiri hebel idabir waxaan leeyahay xilli baa dhacay muddo badan baa dadkan waxay ku soo jireen waddo dheer madaxweynahan maanta anigu waxaan u bixiyay dabaqabad iyo mooral xumadii ku dhacday ummadda Khaatumo ayuu naga daba qabtay aad baan ugu mahadcelinayaa. anigu fariin fari maayo oo cuqaashii iyo waxgaradkii hore ee iga horreeyey ayaa fariintii u gudbiyey oo faray. markii horena waxaan la soo halgamanay Khaatumo, maantana waxaan u taaganahay Khaatumo. Soomaalidu waxay tiraahdaa ubadkaagu ma kala jeclayda iyaga iska kala jeclaysiiya. waxaanu maanta jeclaanay nagu hogaaminaya ayaanu jecelahay. waxaanu jecelahay ka Soomaaliyeed ka noogu ceeliye tagay ayaanu jecelahay, la shaqeynaa u ballan qaadanaa. waxaan taageeraya oo soo dhaweynaya dawladda cusub ee maanta halkan ku dhaarinay ee bedeshay tii ragaadka ahayd ee dabaqa loo saaray afarta sano dabaqa saaray ee aan laba gabdhood sidaa u kala celin, laba gabdhood oo yaryar afartina aan kala celin, wax kale loo qabtaan daayo. taasaan muxuu ahaa taageeraya. Soomaaliduna waxay ku mahmahdaa waxaan huri doono hor baa loo galaa. annagu haddaanu nahay deegaanka cid biyaha qasab ku cabid na dhihi kartaa ma jirto, cid aan u hogaansanahay ma jirto. rabitaanka iyagu waxaan idinkula dardaarmayaa nimankiina maanta bedelay ee xukunkii hore bedelayo ilaahay baan idinku dhaarsheeyey sidii nimankii hore loo gelin. haddii ay idinla noqoto inaad meel kale gashaan noo sheego, waxaad tidhahaan meel kaleanu gelaynaaye danihiinni qabsada. waxaan idiin sheegayaa si aad wuxuu aamintaan daacadnimadayada iyo runtayada shirki ballacad ee 2015 waxaan kaga dhawaaqay in gudoomiyaha iyo madaxweynuhu ay u socdaan Hargeysa. way fuduud waxaan maanta loo cadaynayaa ummadda reer Khaatumo. waan idiin sheegaya gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynuhu hore iyo gudoomiyihii hore ee baarlamaanku waxay jiriyeen 88 qodob oo dastuurka waxay jiriyeen 84 qodob oo xeer hoosaadka. maadaama aanay jirin maxkamad iyo garsoor loo gudbiyaa sida sharcigeedu hadda aanu ku shaqayno qorayo waa simada shirka guud ee dhubahanta isku yimaado haddaanu ku cadeyn weyno inta aanu sheegnay wax dambe aan loo dirsaneen. waxa ay guddidii joogtada ahayd ee baarlamaanka way baabi'iyeen, guddi hoosaadadii bay baabi'iyeen. waxa laale wuxuu shaqeeyaa baarlamaanka ma jiraan. gudoomiyihii baarlamaanku waxa hore maxamuud sheekh cumar wuxuu noqday wasiirka arrimaha dibadda, wasiirka arrimaha gudaha, wasiirka warfaafinta. mayaad aragteen wasiir cali khaliif magacawday oo dhinac fadhiya ama ka hadlaya xaaladda xukuumadda maamul goboleedka Khaatumo Soomaaliya ee lagu saboonteeyay dawladdii hore xukunka inoo haysay tan dambe aynu dhisnay aynu ku soo dhaweynay ku dhaarinaynay cusubay oo madaxweynuhu ugu horeeyo oo gudoomiyaha baarlamaanka ku xigo oo labada gudoomiye ku xigeen ku jirtay waanu idin dhaarinay.
dhaartana waydinku aaminayna ugu dambayntiina waxaa munaasabadda soo gabagabeeyey madaxweyne ku-xigeenka maamulka Khaatumo Cabdalle Maxamuud Haybe Cagalule oo ah madaxweynaha ku-meel gaarka ee maamulka Khaatumo oo ah si hayaa xilka madaxtinimada ee maamulka Khaatumo inta la gaarayo xilliga doorashada. haddii aanu nahay maamulka cusub ee Khaatumo waxaan ku shaqayn doonaa nidaamka ah ee hore loo qaatay ee reer Khaatumo ay hore u go'aansadeen ee ahaa midayn iyo xoreyn iyo maamul hoostaga dawladda federaalka ee Soomaaliya arrin inta ku wajahan baan ka shaqayn doonaa waxqabadkayguna wuxuu noqon doonaa waxqabadkaygu wuxuu ku salaysnaan doonaa haddii Allah uu ogolaado waxqabad ficil muuqda oo dhab ah ma ahaan doono af iyo hadal iyo war beena ma ahaan doono tallaabooyinka ugu horeeyaan qaadi doono haddii Allah uu ogolaado baarlamaanku guddoonka baarlamaanku wuxuu ka shaqayn doonaa dhamaystirka waxaan ku radaa golihiisa baarlamaanka iyo arrimaha khuseeya baarlamaanka anigu haddii Allah uu ogolaado muddo dhow oo kooban oo maalmo ah waxaan soo magacaabi doonaa haddii Allah idmo xukuumad tayo badan oo tiray oo kooban oo waliba waan idin sii tilmaamayaa kuwo ah maxaan ku radaa ku qanci doontaan kuwii xilalkooda ku waayay maxaa daacadda u tihiin calanka buluuga ah iyo ka faras kale ee Khaatumo bay ahaan doonaan xubnaha soo magacaabi doono sida ugu dhaqsaha badan aan u soo magacaabi doonaa. Maxamed Cali Bile Maxamed Karaama telefishinka caalamiga Soomaali Cable buu hoodle